بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد إلهي بأكون مهدسن سيدا مارتي إنه وافجيي محوها هاي انتي هوله أي نكسو جري خير كي بركيسنايا بشا بركيساني رمضان حدنا ما أنت إن شاء الله تعالى حلقة أم كلب كنير وحارمنا إنا نكسو قد بنا إنا عندنا رمضان فرصة للمبادرة بالأعمال الصالحة رمضان سيدي سبا وحوها أم وحوية يعني إن قفك وأدق دقو أعماش وناكسن يا خير كإنه أدق دقو وفرصة العمر وفرصة وسوى كلام العرق وحاجرتا نمان كان عساتها مركي أي مارتي وحاجرتا وقتية أي كفا إيديستان أو موسم التجارة لهذا مركا فيرم وقت كان لوجرا رمضان كو موسم التجارة مع الله سبحانه وتعالى وحل إله سبحانه وتعالى للقى عسنايي oo waxa way waxa loo baahan yahay inaan maartay ku amal falno saabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka 'ardi as-samaa'i wal ard in maartay ilaahay subhanahu wa ta'ala suu ilaahay halla tartamo oo maartay janno oo balaceedu u maartay yaani 'arduha ka 'ardi as-samaa'i wal ard uu leeyahay balaca dhulka iyo samaawaadka waxa jirta fal yatanafasil mutanafisun ilaahay subhanahu wa ta'ala waa kii aayad kale ku leeyahay marka waxa loo baahan yahay bisha barakaysan ramadaan in khayrka iyo mubaadaradiisa iyo in lagu degdego waxa jirta marka acmaal badan oo xilligan amba lagu jiro ramadaanka loo baahan yahay in lagu degdego waxa jirta oo ugu horeeya horta bishan waa bishii barakaysaneeda ramadaan annagana Soomaali hadaan nahay bishan magaceeda waxa baan u noqonaaba waa soon waxa ugu muhiimsan bishan yaani loogu degdegay horta waxa ugu horeeya waa soonka aan dhexdeeda aan soomayno oo muxuu ahaay aan kana hadalnay bishan barakaysan dhexdeeda in la soomo fadliga ay leedahay hore aan uga soo hadalnay waxa kale oo iyada lamid ah sidoo kaleeto tilaawatul quraanil kariim in quraanka kariimka in la akhriyo maxaa yeelay shahru ramadaan waa bishii maaragtay uu quraanku uu soo degay marka waa bishiisi waa lagu xusayaa sida darteed baa jibriil alayhi salaam wuxuu ahaa kaana yudaarisu rasuul sallallahu alayhi wa sallam rasuulka ilaahi wuxuu la akhrin jiray maratan fi kulli ramadaan yaani aw sana kasta yaani ramadaan kasta intuu jibriil yimaado ayuu nabiga alayhi salaatu wa salaam quraanka uu la akhrinayay oo muxuu ahaa oo u meerinahay oo ka hubinayay oo maaragtay uu la mudaarasaynayay ilaa ramadaankii ugu dambeeyay nabiga alayhi salaatu wasalaam ramadaanka uu soomkii ugu dambeeyay laba mar ayuu nabiga alayhi salaatu wasalaam maartay uu quraanka la akhriyay marka sidaa darteed waxa loo baahan yahay bishaan oo kale maadaama bishii quraanka ay tahay inaynu quraanka akhrintiisa iyo aad aynu ugu dadaalno marka soo aan soomaynaa quraanka akhrintiisana waan ku dadaalaynaa waxa kale oo ayadana salaatu tadawwu salaadaha maartay sunnada sidoo kale in lagu dadaalo من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكان النبي عليه الصلاة والسلام يري نكي رمضان استاغا او معناها صلاة تطوع استاغا صلاة التراويح ذي مارتي وحي لمدك يعني غفر له ما تقدم من ذنبه marka waxa loo baahan yahay bishan barakaysan ramadaan inaynu maartay ilaahay subhanahu wa ta'ala aynu maartay salaadaha aynu u tukano tadawuca salaadaha tadawuca markaan leenahayna waxa weey maanta waad ogtihiino ilaahay ummadda ka dal qaaday waxa weey dhibaatadan amba wabaagan loo yaqaano coronavirus ama covid-19 ka loo yaqaan ayaa ummadii halakeeyay marka hadda waxaaba si wanaagsan baan u dhihi lahaa dadku maartay salaadu taraawiixda iyo salaatu leelka guryahooda inay iskaga tukadaan maxay nabiga kaleey salaatu wasalaam ba salaada taraawiixda guriyihiisu ku tukan jiray markuu wax yar uu masaajidka intuu habeeno ku tukaday asxaabtu ay soo bateen ayaa wuxuu yiri waad ogtiina nabiga kaleey salaatu wasalaam ayuu asxaabta iska kala fasaxay oo soo bixinba muxuu u kala fasaxay wuxuu yiri waxaan ka baqay buu yiri in la idinku waajibiyo marka nabiga kaleey salaatu wasalaam fiir ummadiisa ayuu dhibka uga naxayay wa kaana raufan rahiman nabigu aad buu u naxariis badnaa marka sidaa darteed fiir salaad oo cibaado ah wuxuu uga baqay in lagu farad yeelo oo khayr ka helayaan marka coroonahan iyo cudurkan iyo balaayadan socota waxa way xifdu nafsi wax ka weyn ma jire waxa wanaagsan waliba maanta in maartay nin walba gurigiisa inuu salaatu leelka ku tukado halkaas ayaa fadli badan waxa jirta marka sidoo kale waxa loo baahan yahay bishan barakaysan ramadaan in khayrka oo dhan loo degdego sidoo nabigeenu kaleey salaatu wasalaam oo ahaa kaana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam ajwad an-naas horta nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu ahaa dadka ka ugu deeqsan buu ahaa wa kaana ajwad ma yakun marka uu sii deeqsisan yahayna waxay ahayd fi ramadaan xiina yalqaahu jibriil marka uu jibriil la kulmo markaas uu sii deeqsisanaa fala rasuulullaahi ajwad bil khayr min ar-riih al-mursala nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa leeyahay khayrka wuxuu uga degdeg badnaa sida dabayl la diray dabaysha la diray waxa weey waa dabaylaha qaarna khayr bay wadaan qaarna shar bay wadaan dabaylaha waxa jira qaal oo arsalna riyaaha lawaaqiha oo ilaahay yiri
kuwa waxaa jira roobabka wada oo maaragtay marka roobka maaragtay yasrifu amma yashaa yakadu sana barqihi yadhabu bil absar marka waxa weeye ilaahi qolana uu ka leexin qolana uu ku daasiin marka khayrka uu daruuruhu wadaan oo kale nabiga kaleey salaatu wasalaam daruur daaysa ayuu ahaa bisha barakaysan ee ramadaan sidoo kale waxa loo baahan yahay bishaan oo kale in lagu dadaalo at-tahri laylatul qadr يعني إن لجود على هبين كليلة القدر إن آدي آد لوجد در ولي خاصة العشر الأواخر يعني طبعا كقدام بيا بيش بركة سنة رمضان إن آد لوجود سيداله أيا لو بهي وحيا بها بيش عن بركة سنة رمضان لوجود البدن يا الله إن لجود على وحكم ذا الصدقة وحاول أجر كده مضاعف بونقنايا وحكلا كم ذا وحيا بها السنية النبي عليه الصلاة والسلام وكسر ناضي تعجيل الفطور إن دق أفرك للدجيو لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخر السحور بالنبي عليه السلام يعني ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر يعني دتكو خير كما زوليان انت ماركتي اي محوها هاي اي أفرك الدجينيان oo hadaba saa qoraxdu u dhacdo waxa la rabaa oro in laga afuro ayaa la rabaa sidoo kale waxyaabaha maartay la sameeyay khayraadka waxa kamid ah bishan barakaysan as-suhur baa kamid ah tasahharu fa inna fi as-suhur baraka bi nabi alayhi salatu wa salam hal suhurtu yiri suhurtu waa baraka wali suhurtu waxa fiican ayada in dib loo dhigo sidaas ayaa sunnah waxaa kaloo wanaagsan bishaan oo kale al-ihsaanu ila in loo abaal maro oo macnaha dadka la gaarsiiyo khayrka iyo barakada ila al-ahli wal jiiraan wal aqarib kullu bishaan leena waxa way bishaan waa shahrul khayraat waa shahrul barakat waxaa kaloo bishaan aad iyo aad loo baahan yahay in ummadda islaamku inay iscafiso oo maaragtay la issaamaxo ayaa loo baahan yahay ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum wa ka ilaahi subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa uu ku leeyahay wal caafina can الناس dadka cafiya dadka ilaahi waaba iska jecel yahay marka saa darteed waxa la rabaa bishaan barakaysan ee ramadaan in lagu dadaalo yani dadka in la iska cafiyo oo qalbi wanaagsan aad maaragtay aad lahaatid si ilaahi subhanahu wa ta'ala ajirkaaga u dhaafo ugu dambeyntii bishaan barakaysan ee ramadaan waxa loo baahan yahay in la badiyo maadaama mustajaabu dacwo weeyaan bishaan in lagu dadaalo in ilaahi subhanahu wa ta'ala la bariyo oo dunuubta ilaahi inuu noo dhaafo oo jannada na geliyo oo muxuu ahay naarta inaga dheereeyo oo dhibaatadan iyo balaayadan ilaahi subhanahu wa ta'ala bashariyadu hadda ku soo saliday ee coronavirus inuu ilaahi ummadda ka kor qaado oo ummadda maaragtay saabiqa ahdiga u soo celiyo iyadoo maaragtay barwaaqaysan ilaahi subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa dhibaatadan adduunka maanta haysata inuu ka dulqaado bashariyada oo maaragtay uu ka dhigo kuwa ayagana ilaahi subhanahu wa ta'ala ku cibra qaata dhibaatana iyada oo ka faa'iideysta oo ajir iyo shahaadana qaar khayr ka hesho kuwana ay maaragtay ay kuwana qaataan